isku soo noqdo waxaana ciyaarta meel walba joogto oo markale muuqaal cusub aan ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta natiijooyinkii ka soo baxay kulamadii la ciyaaray isreebka koobka qaramada Yurub 2024 ayaa la ciyaarayay xulka Ingiriiska ayaa guul ka gaaray dhigiisa Ukraine xilli Harry Kane iyo Saka ay ka caawiyeen iyo Harry Kane oo noqday ninka ugu goolasha badan xulka qaranka England Portugiiska oo xasuuq weyn u geystay Luxembourg iyo Ronaldo oo taariikh cusub sameynaya laba goolna waa uu ku tuurtay xilli Russia ay iska ciyaarayeen kulan saaxiibtinimo laakiin xulka ogow muddo sanad iyo bilooyin kadib ayuu ku ciyaaray carigiisa magaalada Moscow xilli macallinkii Manchester United hore u soo maamuli jiray Ralph oo ka hadlay isbedelka ku dhacay ciyaaryahankiisa xulka kabtanka u ah ee Sabistar Manchesterna u sababtay isbedelkaas iyo xidiga Manchester City Phil Foden oo qalin lagu sameeyay iyo kulamada uu seegi doono waraqyar haddii muuqaalka shan la garay kanaalkana subscribe noo saara haddii aynu ku bilowno kulamadii la ciyaaray qaaradda Yurub kulankii xalayto ama xilligan wixii ka dambeeyay waa waqtigu isbedelay waa maalin oo marka waa 7 saac iyo qadaadiic hadii la gaaro waqtigu isbedelayo marka maalinta shalay ahayd way tagtay maanta waa maalin cusub marka kulamada la ciyaaray natiijooyinkoodii xulka Ingiriiska oo kale ayaa garaacay nimankii Ukraine nimankan ayaan tan dagaal iyo waxa iskaga socdo Ruushka ayaa isku gumaadaya marka ciyaartaas oo lagu weyneynay in nabadna qaato marka nimankan waxay taagan yihiin nimanka loo naxariisto laakiin Vladimir arinta ma yaqaano laakiin kulankii la ciyaaray ee Wembley ka dhacay nimanka Ingiriiska ayaa raaxaystay laba gool iyo waxba ay ku adkaadeen Harry Kane iyo Bukayo Saka ayaana goolasha dhaliyeen xilli laacibka lagu magacaabo Bukayo Saka uu dhaliyay goolasha ugu qurxoon laga dhaliyay ayaamahan isbuuciidan la dhaliyay kii ugu qurxoonay ayuu dhaliyay laacibka Bukayo Saka wiilka mashiinka waa Arsenal ninka garabka ka duula ee kooxda Gunners-ka sanadkan ay ku duulan tagayso horyaalka rabtana inay ku qaado ayaa wuxuu dhaliyay gool fantastic oo wax kala banaanka laga soo cageeyo cag dheer ayaa laga dhaliyay goolahii Ukraine Luna marka waxa la yiraahdaa warheed hada wax ka qaban karto midda wax ka qabo marka ciyaartoydii Ukraine waa lagu raaxaystayo marka waa lagu baashaalay waa la fogay kariyo nimankan gool badan waa laga dhali karay laakiinse Ingiriisku nimanka way u tuturiyeen oo nimankan ayaan ma wadankoodii waa iska bariga dhexe waa maalin walba la iska rusheeya nimankan kubad fiican ma ciyaaraan marka haloo naxariista camal ay ahayd marka ninka Harry Kane ahayna gool ayuu isugu dhaliyay xilli la siiyay ninka ugu goolasha badan kabta dahabka ninka ugu goolasha badan all time xulka Ingiriiska ayaana farta laga saaray laacibka kooxda Tottenham iyo Ingiriiska u dhashay Harry Kane ninka 270 abaf waxa loo dhigay Tottenham koob lagu ma qaadin Ingiriiska waa kana ninka ugu goolasha badan waay koob lagu ma qaadin marka xulka Ingiriiska way adkaadeen xilli la arkay Zinchenko iyo Grealish oo garba asaysto labadooda sheekaysanaya marka ugu dambeyn ciyaartu wuxuu ku soo gabagabooday laba gool iyo waxba inay guusha ku qaataan nimankii martida ahaa ee gurigooda la joogay oo martida loo ahaa inay adkaadaan marka waxay ugu mahad celinayaan kooxaha London ka dhisay wiilashooda waa Tottenham iyo Arsenal goolasha ay keeneen waa Harry Kane iyo laacibka lagu magacaabo Bukayo Saka kulamada kale la ciyaaray waxa kamid ah xulka Portugiiska oo xasuuq u geystay iyo xidiga qaaro badbaadiyo ceeb iyo farxad garoonka uga bixi rabay ayaa marada cishtayo marka Joe Felix iyo Nicky Rafaelio oo ahayo rigooro cunayo laakiin gool kale dhaliyay marka Portugiiska caawa 6 gool ayay dhaliyeen marka Otavio xatay gool ayuu dhaliyay marka Portugiiska 6 ayay dhaliyeen marka nimanku ayaan tabi kacsiin macallin Martinezna xulka qaranka Portugiiska wax badan ayuu ka bedelay isbedel weyn ayuu ku sameeyay dhan walba dhanka kubadda heshiisada dhanka counter attack dhan walba oo ka diyaariyay xulka qaranka Portugiiska laakiinse ciyaarta ay ciyaareen Luxembourg lagu ma qiimeyn karo waxa lagu qiimeyn kara kulan big game kulan adag tusaale marka Isbaanishka u baxayaan Ingiriiska oo kale Talyaaniga oo kale Faransiiska oo kale Jarmalka oo kale Belgiumka oo kale markay la ciyaarayaan ayaa lagu qiimeyn karaa macalinka isbedelku sameeyay laakiin Luxembourg iyo Liechtenstein iyo Malta iyo lagu ma qiimeyn karo marka xulka Portugiiska way adkaadeen Master lama joojina laba gool ayuu ku tuurtayo ninka caadi maahan xulka Luxembourg waxa lagu leeyahay odaygu 12 kulan oo ka hor yimid 12 jeerba shabaq uu ka taabtay ma bacafiyaba hal xataa kama dhaliyo waa 2 waa 3 waa 4 odayga xulka Luxembourg
waa iskaga raaxaystaayo dadku goolasha ugu badan ka dhaliyo waayo Ronaldo wuxuu sii marayaa 222 gool ayuu heer xul hadda sii marayaa kulankii la soo dhaafayna adkaanayeen Portugiiska oo frigiga odagu dhalinayeen labada jeer shabaqa taabanaya kulankaasna wuxuu noqday ciyaaryahanka ugu safashada badan dhammaan ciyaartooyda ciyaarta xulalka marka macallin Martinez iyo xulkiisa Portugal 6 gool ayay ku adkaadeen nimanku marka lama celi karo imaamadooda lama haysto Master CR7na waxaa leeyahay odagu mar walba mucjiso ayuu sameeynaya kulamada kale la ciyaaro waxaa kamid ah kulan Friendly ayaa waxa lagu ciyaaray magaalada Moscow caasimada dalka Ruushka xilli nimankii Ruushka ay ciyaareen markoodii ugu horeysay sanad iyo 3 bil camal marka nimankii markii laga saaray baa ciyaarihii dhamaay marka kulanku saaxiibtuna ay iska ciyaarayeen wixii la ciyaariyay xulka Iran aana Iraq 2 gool ayayna ku adkaadeen dhanka kale tan wararka waxaa kamid ah macalinka xulka Austria ninka lagu magacaabo Ralf Rangnick ninka professorka hore Manchester United ninka buuga weynay ayaa markaan wuxuu shaaciyay isbedelka ku yimid laacibka kabtanka u ah xulka Austria ninkaas oo lagu magacaabo Marcel Sabitzer ninkan ayaa hore ugu soo ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Bavarianka iyo RB Leipzig horyaalka Bundesliga ayuu ka soo ciyaarayay marka ninkan Manchester United ku soo biiray kulanka la soo dhaafay xulkiisa 2 gool ayuu u dhaliyay laacibka lagu magacaabo Sabitzer marka Austriana way adkaadeenoo marka Ralf ayaa sharaxay isbedelka ku yimid laacibkan kii hore ee Bayern Munich iyo kan hadda Manchester United jooga farqi weyn ayaa u dhaxeeya saameyn weyn ayaa u dhaxeysa ninku markuu jooga Bayern Munich iyo markaan oo Manchester jooga isma lahan Eurogan hadda isdiyaarintiisa awadno Sabitzer waa ciyaaryahan cajiiba midana waxa ka dhigtay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ninkii isbedel ayuu sameeyay challenge cusub ayuu galay midda ayana ka saaciday inuu noqdo Sabitzer kan laakiin kii hore wuxuu ahaa mid yaro qalqal badan oo iska cabsanaya marka Ralfna wuxuu taagan yahay wiilkayga waxa ugu mahad celinaya isbedelkiisa Manchester United dhanka kale tan kooxda kubadda cagta ee Manchester City laacibkooda xulka Ingiriiska u dhashay Phil Foden ayaa qalin lagu sameeyay maadaama ninkan uu dhaawac yahay marka ninka waxa la leeyahay si rasmi ah loo shaaciyay inuu seegayo kulanka Manchester City ee la ciyaarayso Liverpool marka kulamada kale tan waa la arki doona laakiin kulankaas rasmi ah loo shaaciyay marka ninku kulanka uu seegaya ayaa leeyahay war khayraada muuqaalka noola garay kana subscribe noo sar goodbye